waxa uu qaybsamaa laba siyaabood oo ugu waaweyn noloshaada. koowaad waxa weeye inaad markasta adigu aad isku dareento naftaada aad kalsooni ku qabto, horumar ka gaari karto naftaada, inaad isku dayi karto inaad horumar fara badan oo noloshaada aad gaari karto markasta iyo goob kasta. laakiin haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof mar waliba dhibana ah oo doonaya inuu jacayl beena ku abuuro qofna, jacayl beena cidnaba ha ku beerin, maxaa yeelay qofkaasi ma awoodo inuu ku beero jacaylka beenta ee adigu aad wato. adigaagani daawanaya waxaa laga yaabaa inaad siyaabo fara badan aad noloshaada uga gudbi karto caqabad kasta oo timaada haddii aad ka gudbi karto. laakiin caqabadaha lagaga gudbaya noloshaada waa laba siyaabood oo ugu waaweyn. koowaad waa mar waliba oo Allah subxaanahu wa tacaala aad raalli u kaa noqdo. talabaad oo ah inaad markasta isku daydo inaad adigu aad noloshaada aad muhiimadeeda aad saarto, iskuna daydo inaad